waxaa dib loo dhigay dhageysiga dacwada askar South African oo toddobaadkan gudihiisa dhacay jirdil u geystay qoys Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Johannesburg ee wadankan Koonfur Afrika iyadoo ay dawladda Koonfur Afrika sheegtay in askartaas wali baaritaan ku socdo markii uu baaritaanku soo dhamaadana la horkeeni doono sharciga. askartan ayaa waxay ka tirsanayeen ciidamada keydka ee booliska wadankan Koonfur Afrika saldhigoodu yahay xaafadda maamuleed ee hoos tagta caasimadda wadankan ee Pretoria waxaana la socday nin shacab ah oo lagu sheegay inuu dhalashaan ka soo jeeday dalka Tanzania kaasoo la sheegay inuu faldambiyeedku ku caawinayay markii ay askartaasi dhacayeen qoyskaasi Soomaaliyeed waxayna haysteen muddo 2 saac iyo bar ah. ciidamada booliska ee magaalada Johannesburg ayaa wali ku raad jooga askarigii saddexaad kaasoo la aaminsan yahay inuu la baxsaday lacag cadadkeeda lagu sheegay 12,000 oo rand lacagta Koonfur Afrika dahab ay lahayd haweeneydii reerka ay dhaceen iyo taleefanada gacanta ee mobilka ah. qabashada labadan askari iyo ninkan shacabka ah haatan ku jira gacanta booliska ayaa waxa suurageliyay qabashadooda kadib markii darawalkii gaarigii ay ku baxsan lahaayeen oo kaligiis la cararay kadibna dadka isku soo baxay ay isku gadaameen sidaasina ku qabteen ilaa ciidamada booliska ee magaalada Johannesburg ay goobta soo gaareen. Cabdirasaaq Cigaal oo ku magac dheer dooli oo u waramay xafiiska telefishinka caalamiga Universal TV uu ku leeyahay wadankan Koonfur Afrika kadib markii dhaca loo geystay ayaa waxa uu sheegay in markii ay yimaadeen xaafadoodii isaga xaaskiisa iyo gabar 3 sano jir oo kamid ah caruurtiisii ayaa iyagoo guriga sii galay abaari 11 bar ee saacada Koonfur Afrika waxay irida hore ee laga galay gurigooda kula kulmeen 3 askari oo ku labisnaa dharka ciidanka booliska Koonfur Afrika kuwaas oo sheegay in xafiiska sare ee Pretoria laga soo amray ayna ka shakisan yihiin in waxyaabaha maandooriyaha ka ganacsado sida daraadeedna ay doonayaan inay gurigiisa baaraan inkastoo aysan wadanin wax ruqsad ah oo ogolaanaysay in ay baaritaan sameeyaan. waxay tuseen warqado been abuur ah kadib ayay xog ku galeen gurigiisii. isla markii ay gudaha galeen ayay Cabdirasaaq dooli baaritaan ku bilaabeen iyo inay su'aalo weydiiyaan sida halka asal ahaan ka soo jeedo goorta wadankan Koonfur Afrika yimid waxa uu ka shaqeeyo. intuu Cabdirasaaq jawaabta ku guda jiray ayaa mid kamid ah askartii bisoodii uu sitay xabad raacsaday kadibna madaxa ka saaray isagoo u qabtay qadar 2 daqiiqo ah in wax walba ay u baahan yihiin halka ay ka heli karaan u sheego haddii uu sidaas sameyn waayana ay isaga iyo gabadhiisa yar mid ay dili doonaan. waxayna ka qaateen lacag dhan 12,000 oo rand lacagta Koonfur Afrika laga isticmaalo dahabkii ay lahayd xaaskiisii. markii ay muddo 2 saac iyo bar ay haysteen qoyskaasi Soomaaliyeed ayay lug ku carareen maxaa yeelay gaariga ay ku baxsan lahaayeen waxa la cararay darawalkii waday gaariga isagoo ka baqay dadkii dariska ah isku soo baxay laakiin darawalkiis oo saaxiibadiis dib ugu soo noqday markii dambe ayay dadweynihii wadada xireen sidaan ugu qabteen isaga iyo 2 kamid ah kuwii lugta ku baxsaday waxaana la sheegay in mid kamid ah ilaa haatan la leeyahay waana ninka la baxsaday lacagta 12,000 oo rand ah. si kastaba ha ahaatee afhayeenka booliska ee gobolkan Gauteng province haweeneyda lagu magacaabo Miska Taqleeqo ayaa saxaafadda u xaqiijisay in kuwa xiran ay kamid ahaayeen ciidamada keydka ee booliska magaalada Pretoria ee wadankan Koonfur Afrika. ma ahan markii ugu horeysay oo askar ka tirsan booliska wadankan Koonfur Afrika ay dhacay jirdil ka geystaan xaafadda Soomaalidu ay ka degan tahay magaalada Johannesburg. waxay ahayd bishii Luulyo markii ay 4 nin oo ku labisan dareeska ciidamada booliska ee wadankan Koonfur Afrika isla markaana watay gawaarida booliska ay dhacay jirdil baahsan u geysteen qoys Soomaaliyeed kana qaateen wixii hanti ay haysteen iyagoo markaasi jirdil aad u daran u geystay aabaha reerkaasi taasoo sababtay in isbitaal la jiifiyo dhaawac soo gaaray oo aad khatar u ahaa. عبد الناصر صومني Universal TV مقالة Johannesburg Koonfur Afrika.